بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ميلك جوجتان بإله سبحانه وتعالى إذكوا ما يلو عدي دبنبك الله كقاضو عدي دن الله وفي أنت بهن الله ديقو أنت بكتا الله بكسيو أنت دمتي الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستان نغن الله نوغدغ نحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. Waxaan ka hadlayaa heshiiskii Turkiga iyo Soomaaliya ee ku saabsanaa oilka iyo gaaska. Horay ugama hadlin intii uu soo baxay heshiiskaanu. Waxaan arkay warar la wareejinayo anigu aan leeyahay oo heshiisyo hore aan kaga hadlayo oo laga dhigayo inaan kan ka hadlay. Waxaa ka soo baxaya markaas wax isdiidan. Sax maaha. qodobka labaad waxaan arkay dad badan oo Soomaaliyeed oo ka hadlaya oo siyaabo kala duwan uga hadlaya oo qaarkood aad moodid inaysan ba fahmin heshiiska ama aysan fikrad guud ka haysan heshiisyada noocyada heshiisyada ay la galo. waa marka koowaad laba qodob baan horta anu laba meelood baan beegsanaya. horta ciladaha heshiiskan saameeyay sumcadiisa waan tilmaamayaa. waxaan kaloo tilmaamayaa heshiiskan uu noocee yahay heshiisyada la galo oo adduunku galase halkeebu kaga jiraa. kow ciladaha jira aan ku hormaro. waa marka koowaad wixii la qariyo qurun baa ku jira. secrecy-ga iyo qodbasiraynta heshiisku wuxuu keenay dhaawac weyn oo gaaray sumcaddii heshiiska. labo dadka ina ku matala siyaasadda oo xasan sheekh maxamuud kow ka yahay iyo inta kula xiriirta Turkiga oo ka tirsan oo la shaqaysata Turkiga oo Soomaalida ah oo aan sumcad ku lahayn ummadda dhexdeeda aan lagu aamini karin hantida Soomaaliyeed aan lagu aamini karin ammaan aan laga noqon karin ama aan kalsooni lagu qabi karin wax alla wixii heshiis ay saxiixaan. saddex oo qodobka saddexaad khubaro aqoon-yahano u ah cilmigan bartay iyo kontraktiyada sida looyaro ku takhasusay oil contracts oo aan ka muuqan saaxada heshiiska iyo meelaha wax lagu qorqorayo midna lagu saxiixayo midna. afar xasan sheekh maxamuud oo u nugul warqad walba oo heshiis oo la hordhigo inuu iska saxiixo. afartaas oo waxay dhaawaceen heshiiska sumcadiisii. laakiin heshiisku waa heshiis wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed danteeda ka shaqeynaya. anigu xasan wixii uu ku wanaagsan yahay inaan sheego way wixii uu ku xun yahayna inaan sheego way waana sida ay diintu tahay. i'dilu huwa aqrabu littaqwa. ilaahay qofka xataa ishaysaan walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin ala alla ta'dilu. qofka ishaysaan oo colaad idinka dhaxayso ama aad siyaasadda ku kala aragti duwan tihiin cadaaladda ka mid maaha inaad dhaawacdid wixii uu sameeyo wanaagsan inaad wanaagiisa qarisid oo ama la dirirtid maaha sax. marka qodobkaas waxaan rabaa inaan idiin sheego Soomaaliya heshiiskan danbay u tahay. waa idiin sababeynaya Soomaaliya in gaas loo soo saaro $10 ha ka heshay way ka fiican tahay inaan loo soo saarin say waxba ka heli maysay. waa qodobka labaad wadamada caalamka jooga laba group oo waaweyn. group waa groupka westernka la yiraahdo, groupna waa groupka khaliijka la yiraahdo carabta. labada qolo midna ma ogola Soomaaliya in gaas loo soo saaro. qolo maba ogola in loo soo saaro iyaga kooda inuu markaa suuq ka saarayo ama iyagu meesha ka baxayaan bay aaminsan yihiin waa khaliijka iyo carabta. colaadda ugu badan nimanka ku hayana waa iyaga imaaraadka kowka. labo qoladan westernka ahi iyagu inay soo saaraan oo ay markaas qayb libax qaataan oo xoogeeda iyagu cunaan iyo inaan la soo saarin midkood bay jecel yihiin. dal ku dhiirada marka isla markaasna awood leh inuu wax soo saaro oo ku dhiiranaya waddankaas khatarta ku jira oo caasimadiisii baqdinta laga qabo inay gacantaba ka baxdo inuu kharash geliyo billions of dollars gashado oo jiraa ma jiro. marka Turkigu aad buu ugu mahadsan yahay waana soo dhaweynaynaa wax la heli karana maaha. aniga laftigaygu marana aan wax qorqorayay
oo aan arkayay wax la qorqoray oo aan ka falcelinayay heshiiska qarsoodiga uu qarsoonaa dartiis sas baa ay galay laakiin markii aan heshiiskii helay oo akhriyey markaan baaritaan sameeyey oo aan soo akhriyey heshiisyada caalamka uu galo waxaan soo ogaaday heshiiskan hadda aynu aragnay waa framework dal ogol inuu framework inoo saxiixo ma jiro marka waa ku mahadsan yahay turki framework maxaa la yidhaahdaa waa xuduud heshiisyada soo socda oo dhan u noqonaysa terms and conditions waxa la yidhaahdo waa agreement lagu heshiiyey difaacaya Soomaaliya iyo mustaqbalkeeda oil explorationka difaacaya weeye turkigu heshiis kasta oo inala galo oo ceel hebel ina kula galo wuxuu noqon doonaa production sharing agreement waa ka hadli doonaa noocyada heshiisyada ah laakiin waxaa saldhig u noqon doona oo la rabaa inuusan ka hor imaan frameworkan hadda inuu hor yaalla wax badan kuma qorna oo waa qarsoon yihiin oo kharashaadka iyo lacagihii iyo xisaabaadka iyo kulli waa maqan yihiin waxayna ku qoran yihiin heshiiska kale oo qarsoon oo xasanaysto sababta u qaranaya ma naqaan hadduu soo bandhigi lahaa inta la akhriyo baa wixii khaldan loo tilmaami lahaa wuu ka faa'iidaysan lahaa maxaa loo qarsanayaa ma gabar qodbasiro lagu mehersadayba waddan dhan oo waddan kale heshiis la gelaya maxaa heshiiskasa loo qaranaya soo hadhowse soo bixi maayo sida kan oo kale soo dadkii marka confusion ku abuuri maayo noocyada heshiisyada hoo la galo waa 4 nooc waxaa jira midka ugu horeeya waxaa la concession agreement waxaa gala wadamada waaweyn oo xoog waaweyn Mareykanka iyo Ingiriiska iyo kuwaasaa gala wuxuu u daneeyaa kambaniga waxaa la siinayaa dhul iska weynaaday wax kor joogtayna male wax daba socda male fee baa waxa laga qaadayaa fee lacag yar buu bixinayaa oo dawladda siinaya isagaas ka baaranaya wixii uu ka helo wax uun buu ka bixinayaa dambe laakiin isagaas kale wixiisa exclusive rights baa la siinaya oo area ballaaran oo weyn ah nooca labaad oo heshiisyada la galo waxaa PSA production sharing agreement wixii la soo saaray baa la qaybsanaya waa la mid profit sharing agreement waa isku mid wixii la soo saaray in ceerin lagu qaybsado iyo markii la gaday oo kharashka laga jaray faa'iidadii soo baxday in la qaybsado isku mid waxaa jira mid la service agreement oo waxaad shirkadda siinaysaa ceel hebel ii qod 500 milyan baa ku siinaya waxba kama gelin wixii laga helo iyo waxaan laga helin riskiga isagu shughul kuma laha dawladda iskale dhulkeeda waxaa gala wadamada carabta oo kale oo lacag haysta baa kambaniyada waxay dhahaan intaasaan ku siinaynaa ceel halkaa noo qod wixii laga helayo waxaan laga helin waxba kama khuseeyaan nooca afaraadna waxaa la yidhaha risk agreement wuxuu isku daraa concessionka iyo production agreementiga wuxuun baa la wadaagaa kharashka wuxuunna waa la wadaagaa faa'iidada kan Soomaaliya ay gashay marka waa kan u daneeya stateyada oo la yiraahdo production sharing agreement wadamadu u daneeya loo qodayo gaaska host country noocaas marka heshiiskaasi waa inuu raali geliyaa framework hadda laynoo soo saaray oo aan aragnay waa inuu raali geliyaa waa in royalty oo 5% ah laga jaraa marka koowaad 95 ka soo haray marka la suuq geeyo kharashkii laga jaro oo ah up to 90% maaha 90% waa up to ugu badnaan way maaha waan rajaynaya dawladdu inay arrintaa PSA ay kaga dooday haddii uu soo baxo waa arki lahayn waana garan lahayn intay tahay ma naqaan average-ka adduunka markaan u fiirsaday 65 75 حتى 85 وارك up to 85 لكن waa rare average caadiga ah waa around 60 65 70 ugu badnaan marka 90 aan la gehin bay ku fiicnaan lahayd balse haddii hadda worst case scenario 90 ay qaataan oo 10 ka soo haray markaan horta 5 la baxnay inagu duuduub kula baxnay royalty ku qaadanay 90 ka soo haray 95 soo hartay ay 90 qaateen shanta soo harteen aan kala jabsano oo 250 iyo 250 u kala qaadano oo kala bara 50-50 ah waxaan yeelanay inagu 7.5 baan helnay lacagta soo baxaysa iyo inta la helayo bay ku xiran tahay lacagteenu intay la ekaan doonto billions of dollars ina kala laga yaabo tusaalaan siya Guyana heshiiskii ay gashay 2022 oo gaaska loogu qoday
royaltigeedu 2% buu ahaa canshuurteedu 10% bay ahayd hadda annaga canshuurti kama muuqato heshiis canshuuroo turkigu ay xasan sheekh la galeen xasan waa saan idiin sheegay heshiis hadduu arko waa iska saxiixa waxba heshiis baa haddii la keeno waa saxiixaya waa nin mucjizaa soomaaliya kambaniyadeedu investment turki uma aadaan turkigu wadamo aad u badan oo dhowr iyo 80 wadana buu heshiis kula jiraa taxation agreement ah annaga 2016 kiiba xasan la galay maxay tahay no double taxation macnaheedu maxay tahay kambaniga maalgashada waddankeena oo turki ah haddii corporate taxes laga qaado canshuurtii taxigii corporate-ka laga qaado dadka u shaqeeya iyo dadka maalgashaday oo iskale oo turkida ah income tax laga qaadi maayo inagu ma turki baan maalgashanaa iyaga keliya waa heshiis hal dhinaca heshiiskaas buu ku dhisan yahay framework hadda ahi oo raali gelinaya macnaheedu waxa weeye kambaniga lacagta kambaniga halkaa wax ka qodaya iyo dadka ka shaqeeya oo dhan oo noqon doona dad badan oo turkiya ama turkiga dhinacooda ka socda canshuurtii income taxiga lagama qaadayo heshiiskaa xasan galay oo hore baana dhaawacaya laakiin heshiiskan hadda la saxiixay oo framework ahi aad buu u fiican yahay soomaalidana danteeda ayuu ka shaqaynaya waxaan kaloo arkay kaas goyaane ka sokow waxaan arkay Oxford iyo National Institute of Health labaduba waxay ka qoreen qoraalay ka sameeyeen studies 65-35 production sharing agreement 65 na in laga dhigo cost recovery 35 na laga dhigo wax la wadaago la qaybsanayo markii royalty laga jaray bay average ku tahay bay leeyihiin qoladan kale waxay leeyihiin 60-40 60-40 markii royalty-ga oo 5 ah laga jaro 5 waa badan tahay ma xuma laba lagu bilaabaa 3 baa jira 10 baa jira hadda goyaana oo 2 sano ka hor ku bilowday 2% hadda waxay maraysaa 10% royalty-guna kor buu u socdaa maxaa cost recovery expenses kuna hoos buu u socdaa dawladda waxay waa kordhayaan kambaniga wixiisuna waa yaraanayaan kambaniga hadda marka turkida ah from fair game marka laga hadlayo turkigu dantiisu ka shaqaysanaya dalkiisu u danaynaya kambanigiisu u danaynaya dhaqaalaha uu ka helayo u danaynaya iyadoo u doodaya adnaada laga rabaa inaa u doodin marka haddii lagaaga adkaado meeshaas dee waa adiga iyo jileecaaga waa xasan iyo u jilicsanaanta ajnabiga laakiin marka run la sheego waddankaa khatarta ku jira canshuurta insuransiga kambanigaasi uu gelinayo qalabkiisa imisay dhan tahay isleedihin millions insurance aad qaali u abay gelayaan waxay kaloo gelayaan riski ah talow haddaad meeshaa lacagtaa gelisaan intaas la ego millionska ama bilyankaba gaaraysa aad gelisaan armaa balaaya dhacdaayo meesha waa lagu kala tagaayo xabad leydin kala daalayo force majeure wax la yiraahdaa aad hadhow ku dhacdaa force majeure haddii wax weyni dhacaan oo balaaya dhacdo kontraktiyadii la galay sidii Soomaaliya waagii duntay oo kale kontraktiyadii ka horreeyay oo force majeure la tagaysa waa dhumaya waxaa kaloo ay riski u galayaan intaas oo lacag intay galiyaan inay meeshiiba wax ka waayaan waa suurtagal marka inay marka waxoodii haddii wax laga helo meesha ay marka hore wada qaataan waxoodii oo marka wixii soo haray hadhow la isugu soo noqdo 5% royalty na lagu siiyo up to 90 marka la yiraahdana another 5 ay ka soo harto deal xun ma waa deal aad u wanaagsan waa heshiis macna leh ummadana macna u leh Soomaaliya gaajada inay ka baxdo waxay keenaysaa kuwaas duurka ku jiro qoryaha wato afka duuban haday lacag helaan oo lacag la siiyo wala iska heshiin lahaa xabadana way iska dhigi lahayn ummaduna way degi lahayn marka heshiiskaas uu si guud framework-aan aragnay ma xuma heshiiskii kale wali waa maqan yahay ciladaha jirana waa idiin sheegayo dadka inuu ku matalaya siyaasadda baan kalsooni lagu qabin arintaasaa keentay dajada iyo buuqa kacay arintaasaa keentay laakiin heshiiskan waa heshiis loo baahnaa turkiguna waa ku mahadsan yahay inuu ku dhiirado iyadoo adduunkoo dhan uusan ogolayn in loo soo saaro dawlad xoog loo inta dhiirato tiraawar annaga u soo saareen ayaa wax naga qaadi kara gobannimo waa gobannimo $10 haddaan ka helno saan hadaayo u iri way ka fiican tahay inaan waxba ka helin lacag aad u badan baana laga helaya 5% royalty aad bay u badan tahay gaaska Soomaaliduna waa badan yahay marka intaasaan oranayaa billahi tawfiiq khayr badan baa idin rajaynayaa wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.